بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم كليبكان وكليبكي سدحات وان kaga hadlaynay caqabadaha hortaagan dhismaha dawladnimada Soomaaliya maanta mawduuca aan ka hadlayo magaciisa waxa la yiraahdaa dulmiga iyo cirab xumada oo ummadaha ku reebo gaar ahaan dulmiga gala dawladnimada ka ayaan waxyaro kooban walaalayaal ka sheegaya walaalayaal dulmigu sidiisaba waa shay xun qofka sameeyana wuxuu dhaxal siiyaa naar tusan ilaahay uga tooba keenin waana waxa ummadaha isdulmiya adduunka taariikh iyo magac kaga ma tagaan way suulaan bal dawladii dadkeedii dulmisa oo raciyadeeda dulmisa ee ku dulmisa awoodii ilaahay marka uu dhiibay iyaduna masiirkeedu waa inay adduunka ka tagtaa oo aysan dib daba u noolaan qof kasta oo wax akhriya ama wax qora ama mufakkir ah ha ahaado muslim ama muslim ghayrkii dhammaan waxay isku raaceen dulmiga nooca ugu xun inuu yahay dulmiga dawladnimada gala ama dawladnimada oo abuse powerka oo la isku abuse gareeyo oo la isku dulmiyo oo la isugu awood sheegto inuu yahay kan ugu xun dulmiga noocyadiisa intaas ayay sheegeen xaqiiqatan dulmigu waa wax xun oo culimada islaamkuna waxay yiraahdeen dulmiga sida aayad ilaahay uu yiri ilaahay subhanahu wa ta'ala inna shirka la dulmun adim ilaahay inaad u shariig yeesho alayhi ku abuuray garaweyso oo shirka la timaa ee dulmiga ugu weyn laakiin markii ka laga soo tago aqsaamta kale dulmiga ka ugu xun waa dulmun aan dawla dad dawlad sheeganaya oo shacabkooda dulminaya ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri soo ka hadlaya dulmiga xumaha uu leeyahay bayaaninaya wuxuu yiri ilaahay wama ana bidhallamin lil abid anigu mid adoomadiisa dulmiya ma ahi buu yiri ilaahay iska anfi wama allah yuriidu dhulma lil alamin ilaahina ma aha mid dulmi iyo gardarro caalamiinta la doonaya ma aha ayad kale ilaahay wuxuu ku yiri ayada la macna ah wama allah yuriidu dhulma lil ibad ilaahi ma aha mid la doonaya dulmi iyo gardarro iyo xadgudub adoomadiisa wuxuu xadiis qudsi ku yiri xadiis qudsi ayaa macnihiisu ahaa ilaahay uu nabigu ka warinayo uu yiri ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi adoomadiyadiyo anigu dulmiga naftayda ayaa ka xarimay oo u diiday dulmi waja'altu baynakum muharrama waxana ka yeelay dulmiga dhexdiina mid mamnuuca oo xaraam ah fala tadalamu haysdulminina walaalayaal dulmiga kala dawladnimada culimo badan baa ka hadashay sidaan hore u soo sheegay ibn taymiya wuxuu yiri الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة إلهي وهو غرغارة دولة ذا قالة هدي عدل سميسو عدل أي سمينيسو ويرعيه عدل فلايسو ويوناجينيسو أيضا قالة لا إلهي وغرغارة يجري وحكلو يري ولا ينصر الدولة الظالمة إلهي الدولة الظالمة وددك إذا ظلمسة ورعيه ظلمسة وما غرغارو وإن كانت مؤمنة بها أهاتي تصالح waxaa kugu filan dawladihii islaamka soo maray waxay kala ahaayeen dawlad bani umayya dawlad abbasiyiin ayyubiyiin saljuuqiyiin dawladii ugu dambeysay oo la dhihi jiray al-uthmaniyiin nimanka turkida ah waxa kamid ah ayyubiyiin way fara badnaayeen waxa soo dhan oo dawladaha muslimiina asbaabihi ay ku suuleen markaad fiiriso oo akhriso dib u akhriya waxa kamid ah qodobadaas waxa baabi'iyay dulmiga marka hore way fiicnaayeen marka dambe ayay waxay gaarayaan markay nicmada iyo maalka umada cunaan oo xaraantu ka badato oo kitaabka Ilaahay ka inxiraafaan inay marka dulmiyaan raciyadii markay raciyadu dulmiyaana way suulaan dawladii reer bani umayya 9 sano ayay ka talinaysay dhulka muslimiinta markay ugu dambeysay abbasiyiinta xukunka kala wareegay dagaal bay ku soo qaadeen dhulkan Afghanistan iyo Ajamiga wasuuliyeen qof reer bani umayya adduunka looguma tigin baa leeyahay wax dhuntay maahane qof reer bani umayya ayaa la waayay hal wiil baa ka fakaday oo ka cararay oo la dhihi jiray Cabdiraxmaan ad-Daakhil oo Spain galay Andalus ninka ayaa ka badbaaday baa leeyahay waxaa la weydiiyay raggoodii marka wax galka ah odayaasha ah oo khubarada ah war maxaa heerkan idin gaarsiiyay baa leeyahay izzi iyo sharaf baa leedahay maxaa sidaan idin duleeyay
raciyadii baan dulminay yiraahdeen waxaana ku dulminay awoodii ay ahayd inaan ku dhaqaalayno oo u cadl falan ayaan si khaldan u isticmaalay oo dulminay markay dadkii shucuubtan u talinayna ay ka qoosteen cadligeena iyo wanaageena waa nagu kaceen cadow annagana sugayay oo cabaasiyiin iyo wax lamida ayay noo soo raaceen markaas waxay dhahay dhulkii naga go'ay taa ayaa nagu dhacday ayay yiraahdeen rag aqli badan bay ahaayeen annaga hadda waa baaba'ayna qaxbaan ku jirnaa dawlad xun dhibaato dulmi wadankan wax baabi'iyay cadaalad darro ay ahayd weligeed Soomaalidu cadaalad darro kala talinaysa miyiga markay joogaan waa isku dhacaan oo si u kala qabiil iyo awood badan yihiin magaalada markaa nimidna dawladnimadii waaban garan la'ana meel ay naga marto wali waxaan rabnaa inaan isdulmino oo madaxa isaga joogsano dulmiga waxa kugu filan oo cadbaba 4.5 baladu wuxuu yahay sheeg way noo keeneen markaas nagu korhayaan marka war ummadda ninka wax galo qiimaha inuu u taliya sax laakiin qabiil ballaarana ka dhashay qabiil laandheera adiga ku tala laandheeranimadaada ummaddu waxay islaamku u yaqaanaa ka in kugu wanaagsan oo waxaan shaqadan ka soo bixi kara loo dhiibo kii aan ka soo bixi karin Soomaa iska joogo duurka meelihiisa iska taagnaado walaalayaal laba example ayaan keenayaa tusaalooyin boqorkii la dhigi jiray Kisra oo boqoradii u tali jiray ahaa dawladii Iran oo Persianka ama dawlad Farisiya ayaa magacyadooda waxa la dhigi jiray Kisra nin kamid ahaa oo xilligii rasuulka kaleey salaatu wasalaam la soo saaray wax yar ka hor noolaa ayaa waxa la sheegay markuu yaraa isagoo dhowr sano jiro ilmo yar ah yaa ninkii murabbiga ahaa oo tarbiyeynayay ayaa dilay baa la yiri markaas waxa la yiri uu ka samri waayay markuu weynaaday ayuu wuxuu yiri ninka haleegu yeero markuu weynaaday oo malik noqday ayuu yiri ninka murabbiga ahaa oo wali nool haleegu yeero maxaad garaacday oo ii dishay sabab la'aan anigoo wax dambiga gali marka ninka manixin ma argagixin boqorka hadalkiisii wuxuu yiri ogaal baan ku garaacay ku talagal haye wuxuu yiri waxaan rabay buu yiri inuusan garaaca iyo ciilkaas madaxda uusan ka bixin oo dulmiga lagu garaacay qof bani aadan dulmin buu yiri wuxuu yiri baa leeyahay sah oo macnaheedu oo luqad kelmad farisa iyo korni zidni iyo korni sida ay ahaayeen walaalayaal umamka wax kalaba masuuliyaan waxa suuliya waa awoodda dawladnimada oo la isugu muxuu ahaa la isu sheegto oo si khaldan loo isticmaalo waad ogtihiin todobada harka ilaahay hargasho waxa kamida imaam caadila haddana waxa naarta galaya nin wixii loo dhibay masuuliyadeedii aan ka cadaalad falin ee ku dulmi sameeyay maanta waxaan waajahaynaa caqabada fara badan oo dulmigaas oo dawladnimada gala uu nagu hayo oo shacabku ay tirsanayaan waxaad maqlaysaa kursigii baa loo dhacay waa loo xiray waa loo boobay malxiis waxaba ka daranba dawlad la'aantana haysata iyo midda mustaqbalka mugdiga oo nagu soo socda ama aan ku noolnahay rajabeelka oo xagga dawladnimada naga haysata alfaada shaniica ah oo xun oo caruurta iyada iyo kuwa aan kuwa sii dhalaan ay bara doonaan ama taariikhda ay naga qori doonaan maxay tahay wax la yiraahdo malxiis aroos baa lagu ogaa magaci baa la soo kaxeeyay nin waa shaahdu zuur bal eeg markaas la dhaxgeliyay waxa noocaas oo 4.5 iyo malxiis iyo kursiga waa loo xiriyay waa la boobay waa la dhacay oo dhaqanka aadka u qaab daran ah waa waxa na dhaxal siiyay meesha inaan joogno walaalayaal dulmigu dawlad dhisan uu dumiyaa sida ummadaha dhan ragooda wax garadka ay sheegeen mid dhismaysana ma dhisaaliyo dulmigu haduu galana waa sii dumiyaa oo ma dhisantaba ummad marka daalimada haday dawlad leedahay dawladdaasi waa ka duntaa oo way iscunaan hadii ay yihiin baa la yiri kuwa marka nidaam iyo system dawladeed dhisaan rabaana hadayba dulmi ku dhisaan dulmigaas ma suurtagal baa inuu dhismaa la yiri kuwa adduunka dhan baa isku raacay dadka wax akhriyo dhan marka walaalayaal waa arin aad u xun anagu maanta waxaan baahi u qabnaa dawladnimo waxaan ku gaari karnaa inaan baranno waxa ay tahay dawladnimo ظلمك iyo abuse iyo dawladnimada la isku awoodo sheeganayaan iska dhaafno inta ay hadalkii ku soo koobaya kliib xira waxaan kaga hadli doonaa Ilaahay yiraahdo waxa malxiiska la yiraahdo oo dawladnimada lagu soo daray waxa uu yahay diintu waxay ka qabto iyo falxumada uu leeyahay wabillahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh